waxaa runtii farxadii ah inaan halka kan ka salaamo ugu horeyn gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi gudoomiye ku-xigeenka labaad Axmed Cabdi Dheere wasiirada ugu horeeyo Farxaan Duulista Hawada wasiir Cadaawn iyo dhamaanba marti sharafta kale xildhibaanada iyo wasiiradaba waxaan aad iyo aad u yar u salaamayaa haweenweynaha dhalinyarada madax dhaqameedka waxgaradka bariga Hargeysa taa halka markaan ku dhaafo waxaan de Soomaalida waa taqaanaaye markii xafladan la abaabulayay ayaa Axmed Cabdi Dheere wuxuu igu yiri Axmed Cabdi Dheere ayaa wuxuu yiri xaflad baa qoladii reer New Hargeysa bariga Hargeysa isxaq qabsanayaano wallaahi hoolashuba hoolna qaadaanaan hayn buu yiriba dabadeedna ana xoogaa way galayoo ilaa Soomaalida waa taqaanaa markuu qoladii isxaq carree ba meel la qaadala baan yiri wallaahi qoladii faraha badneed Ismaaciil Carre waxaan u malaynayaa garoonka marka ciyaaruhu dhamaadaan kaan baa naga xafladayda lagu qaban karaya ilaa Soomaalida waa taqaanaa aad iyo aad baan bariga Hargeysa isxaq ugu mahadnaqayaa sida ay Soomaaliland halkay kaga jiraan waa u sharaf mala inkastoo waxa yiri waxa u duceeyay Cawl Cali Ducaale bihi Cali Ducaale yiri wuxuu yiri baa la yiri habar Yunus markuu la talinayay inamadiisa halka isxaq mar maanta se tiiba dhacdo taa maanta lagu taagay oo halkii maalintii isxaq maray ay noogeen hadda laga hadlaayay ayay maanta xaga ku taagan waaydi ku hambalyeynayna annaguna waa idin la garanado sidaas sax ahay ha ninkii hadlayaaba ha hadlo ka halkaas aan dhigaya waxaan leeyahay oo ku soo ku xijinaya qodobka xisbiga kulmiye iyo doorashada wadani waxba oran maayo waxa ka hadlay Suldaan Saleebaan dadkuna waa ogiya waa udubtaa la sheegay tartan baa naga dhaxeeya marada iyo calanku bay bedesheen dadkuna waa yaqaana nin waliba wuxuu galo iyo wuxuu gudo waxaan leeyahay saddex arimood ayaa lagu dooranayaa kulmiye la shaka guushii halka ka dhacday 2010kii mid ka badan ayuu ku helaya saddexda arimood baan idin sheegaya qodobka koobaad waxa weeye xisbigu wuxuu leeyahay taageerayaal soo jireena oo la kowsaday maaha xisbi curdinaho hadda la yabayo maaha waa xisbi soo jireen oo taageerayaashiisu bari ilaa galbeed ay jiraan taageerayaasha waxaan leeyahay xisbiga kulmiye taageerayaashiisu xisbigu waa kiini waa xisbiga asaasteen waa kan maanta madaxweynaha lagu yahay waa ka lagu noqonayo madaxweynaha waa ka baarlamaan kale waa ka deegaan kale waa ka horumarka ay gaarsiiyay dabaylaha iyo siigooyinka yaryar yayna ruxin kaasaan leeyahay qodobka kale ee lagu dooranayo waxa weeye waa wax qabadka haday wada tahay haday lacagtii la bedelay tahay haday darajooyinka ciidanka tahay wax qabadkii iyo raadka muuqda ayaa lagu dooranaya qodobka saddexaad ee lagu dooranaya waxa weeye waa gudoomiyaha maanta ee murashax ah iyo taariikhdiisa lagu dooranaya dadkeena waxa lagu yaqaanaa inay maxaa ku yiraahdaa aan runta isu sheegin Muuse Biixi waa kuma Muuse Biixi waa mujaahid isagoo dhalinyaro ah oo noloshu koow u tahay ayuu arkay waxa ka jira dalkiisa uu qaadan waay iyo dadkiisa lagu la kacayo isagoo oo tabcan kari lahaa dhoofi kari lahaa madax noqon kari lahaa oo dalkaas ka raadinaysan lahaa waa kii halkaas soo galay hawdkaas ee dagaalamayay 10 sanadood ragii horeeyay buu ahaa waxa la lahaa hadeer idinku aad u raaliya cadaalad baanu ka rabnaa cadaaladii sanadin iftiiminaya 1900 iyo kaas 1990kii bal gubad la shir lagu qabtay SNM baa ku qabatay duruuftu way adkay dadku qaxooti buu ahaa waxa way SNM garabyo iyo waxba iska jiray ninkii kaliyaha ee lagu aaminay shirki golaha dhexe ee Cabdiraxmaan Axmed Cali lagu doortay Muuse Biixi buu ahaa
haddaanu runta sheegno ma fanta waxbaan idin sheegaya Soomaaliya dhaqankeeda idin baraya ninku reerkiisa iyo waa dhaqan aynu leenahay waxa tartamayay nima isku raas yihiin iyo nin kale oo beesha bariga Hargeysa ilaa Ceergaabo iyo Burca waxa way lagu yaqaan Soomaalida oo waliba maalmaha aynu arkaynaa marka hawlahaasi socdaan reerkeena golaha dhexe u badi soo buuxi shirkayha ka kaarka u diid ka dibadda ku celi ka ma jiro dheh kaas askarigu hal la dagaalamo Soomaad garan inta midna ma sameeynin kan doonayo waa ka khiyaamo muu sameeynin cadaalad ku kala saar iyadoo la arkayo cadaalad ku kala saar oo uu soo saaray oo ku soo baxay golihii ninkii aan isku raaska ahayn beesha kale aha miyaanay taariikh ahayn taas oo cadaaladiisa qodob kale la weydiin sheegaya muuse waxa uu qabuu sheega halka aanu rabin intuu dadkayda xagga u bayra isagu gacanta uma taago dhaqanka ma laha waxa uu qabuu sheega oo ruuxiga dhaqankiisu sheegta ma aha nin yiraahdo wuxuu oran karay maalintii warqadaha wax ka bedela halka sida yeela ma laha waxa uu qabuu ku sheegaya wuxuu ka oranayaa hebel baa ka soo horeeyay hebel baa kaaga xaqle maanta adigu kalka dambaatay tusaalaadii soo qabanaya berigii uu ka tagay waabeeyo meesha la waabeeyana ku yiri war waabeeyo kala waa tagaysaa meeshaadii ama cadaani baa la amaaniga been Cabdilaare waani ka yiri ambassador labadeedna wuxuu igu yiri waxaan dib halkii waabeeyaan doonay inta soo taagay wuxuu wad wanaagsan tahay laakiin Ahmed Cabdilaare kaaga soo horeeyay wax kale iguma oran waa ka jooga waxaan yiri waan ku qancay raalli baan ku ahaaday waayo waxaan ogahay maalinta kalkaygu joogo inaanu nin kale hadda yimi aanu iga dulgalinayno keenay kalkaygana aan hormayaan oga saasaan ku qaatay maadaama ay sidaa tahay waxaan leeyahay gudoomiyaha murashaxa ah ninkii wax sheegaya wixii wax xamanaya midna ma jira kalsooni ilaa Ceergaabo xudun laas caanood baan u raacay kalsooni baa lagu qabaa waa nin lagu kalsoon yahay sidii la sheegayay xamar iyo sheekadeeda iyo mid kale ku darayaan ilaaway ma aha raggii madaxda ahaa markay kursiga waayaan maalin walba wuu taagnaa halka Hargeysa ee dalkaas uu taagay la Ceergaabo ilaa halka ma ahayn raggii markay ama xilka waayaan ama ay wax qo'daan intuu dhaqaaqo meelaha kale dariskeena iyo soo marmari jiray oran jiray ha dhowto afis baan Soomaaliland weydiisanaya waligii ma oran waligii ma uu ku amaanaya go'aanka uu ku adag yahay aad baan ugu amaanaya marka waxaan leeyahay nik doorashadiisu way nagu waajib waynaan raacnaa waynaan u hiilinaa waynaan ogaanaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi kulmiye ha noolaado ha guulayso muuse biix ha guulayso Soomaaliland ha noolaato cadawgeedu ha jabo wassalaamu calaykum aad iyo aad u mahadsan